laba beelood oo ka tirsan beelaha wadadaga gobolka Galgaduud ayaa maanta heshiis ku gaaray shirka dib u heshiisiinta ee ka socda degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. warbixintaasi waxa inoo faafahinaya wariyahayaga Shucayb Maxamed Cali. magaala madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb oo wali ka soconayo shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolada dhexe ee Soomaaliya maanta mar kale waxa heshiis ku kala saxiixday laba beel oo walaalaha wada dega bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka. beelahan ayaa ku kala abtirsada degmooyinka Ceelbuur iyo Ceelgaras waxaana xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo heshiiska dhexmaray ee ka dhacday bartamaha caasimadda Galgaduud ee Dhuusamareeb. ugu horreyn xafladda waxaa ka hadlay Cabdullaahi Cabdi Kulmiye oo madasha ka akhriyay qodobo ay ku heshiiyeen labadan beel ee walaalaha ah. labada beelood waxay ku heshiiyeen inay isxafiyaan isla markaasna wixii hara oo dhammaystir ah u daayaan maamulka dawladeed ee iman doona dhawaanahan soo socda haddii Alla idmo. labo in labada beelood ay iska kaashadaan ilaalinta nabadda iyo ku wada noolaanshaha deegaanada ay wada degaan. saddex labada beelood waxay si buuxda ugu heshiiyeen inay wax walba ka hormariyaan tixgelinta dib u heshiisiinta iyo dhismaha maamul u samaynta labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. waxay sidoo kale labada beelood ku heshiiyeen inay xaq dhowraan xiriirka walaaltinimo ee kala dhaxeeya beelaha la dega deegaanka gobolada dhexe. shan waxay beelaha mursado iyo diblo ugu baaqayaan dhammaan jaaliyadaha qurba joogta shacabka labada beelood iyo beelaha kale ee ku nool gobolada dhexe inay isafiyaan isu tanaasulaan isla markaasna ay gacan ka geystaan guulaysiga gogasha nabadeed ee ka fidsan magaala madaxda gobolka Galgaduud ee Dhuusamareeb. wallahu calaamaa naqul wakiil baad maasantii. inta kadib madasha waxaa ka hadlay xubno kamid ah ergada ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galgaduud iyo Mudug oo kamid yahay gudoomiyaha shirgudoonka shirka ka soconaya Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Diinaari. xogaa waxaa muuqata in doorkii aan ka filaynay oo dhinaca dawladda inaanay weli muuqan gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo aan filaynay mar haddii madaxweynaha furay in ay si buuxda uga soo qayb gasho in ay horseed ka noqoto. wasaaradda arrimaha gudaha waxay mas'uul ka tahay shirarkaas dib u heshiisiinta, waxay mas'uul ka tahay inay dadka isu geyso, waxay mas'uul ka tahay arrimaha amniga. madaxweynihii waa furay, waa ku mahadsan yahay weliba inuu taageersan yahay shirkan dib u heshiisiintu madaxweynuhu caddeeyey. wasaaraddu marka waxaan filaynay maalmaha ku xiga inay gobolka timaado, inay caasimadda timaado Dhuusamareeb, isla markaasina ay shirka gacan ka geysato sidii uu habsamay ugu socon lahaa. walina waa sugaynaa. sidoo kale iyagana goobta waxaa ka hadlay ugaas Axmed ugaas Faarax iyo sidoo kale Salaad Axmed Caynte oo kala matalayay labada beel ee maanta heshiiska ku gaaray caasimadda Galgaduud ee Dhuusamareeb. inaan beelaha aan ka nimid sharaftooda iyo magacooda iyo maamulkooda iyo jiritaankooda aan midayno oo qalbiga gashano oo daacad ka wada ahaano. wixii labadan beelood ku heshiisay waa maqlayseen, waan fariisanay, wax walbana meelaha iska dhignay. dadkii naga dambeeyay waa la hadalnay, kuwii dabadda jiray kuwii gudaha jiray waa la hadalnay. waxaan rabaa horta in la iska dhigo colaad. inta meeshaan fadhida laba qof hadal ay isla ogaatay baa dadkoo dhan kala gaara. intaani hadal ay isla ogaatay ama waxay go'aansadeenna ummadoo dhan buu kala gaarayaa. marka Soomaalida halka isugu timid akhyaarta badan ee halka fadhiday nabad inaan go'aansano ma ballan qaadnay. ballan qaada ku shaqeeyo wax Ilaahay wato ma celi kartaan adinku. ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray Xuseen Cali Wehliye Cirfe gudoomiyaha dawladda Soomaaliya ee gobolka Galgaduud. marka waxaan leenahay beesha caalamka sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegta badan ayaa shirkan looga sugayaa. muddana waa la sugayay. waxaan rajaynaynaa inaad hawshiina gudataan. wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii dawladdeena federaalka iyana waxaan rajaynayaa inay wafdi u soo dirto shirkan dib u heshiisiinta siday goobjoog uga noqoto. inkastoo annagu aan u matalayno dawladda, haddana wasaaradda arrimaha gudaha waa laga maarmaan inay maaragtay u soo dirto wafdi la socda shirkan xaaladda uu marayo. maalinimadii shalay ayay ahayd markii laba beel oo walaalo ah oo kamid ah beelaha shirku uga socdo caasimadda Galgaduud ay sidaan oo kale heshiis u kala saxiixdeen. Shucayb Maxamed Cali, Somali Channel, magaalada Dhuusamareeb.